xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ololihiisa doorashada madaxtooyada ka bilaabay soona bandhiga xuduudda taageero ay ku leeyahay degmada Garadagh iyo deegaanada hoos yimaada waxaana isugu soo baxay dadweyne aad u tiro badan kuwaas oo ku tiraabaya hadallo ay ku taageerayaan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana dadweynaha ugu dambeyntii ay isugu soo biyashubteen geedka nabadda caanka ku tahay degmada Garadagh waxaana taageerayaasha xisbiga halka kula hadlay xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani lagu baqrayay laguna heshiisiinaya Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Axmed Maxamuud Siilaayo lagu wada baqrayay Siilaayo maalinta waxa soo 2008 Siilaayo iyo Saleebaan waxay Garadagh yimaadeen maalinta la heshiisiinayay Garadagh oo abaara oo foosada la siiyo 9 kula kiibaartiya 9 kula kiibaarta iyadoo abaartaas haysato ayaa lagu qabtay shirka kadib waxay Siilaayo iyo Saleebaan Maxamuud Aadan Garadagh ugu deeqeen 20 boqolkiiba biyaha bay maalinta ugu deeqeen 20 boqolkiiba biyaha waxa soo magaalada islaamuhu waxay ku dhaan lama lahayn waxa lagu dhaasanayay afar qaado lagu qaybiyo baa lagu qaybiyo maalintii Siilaayo wadanka qabsaday ee uu 7 sano kulmiye haystay Garadagh iyo maanta ay tahay 2017 sideedaas sanadoodu hayay maanta biyo maxay marayaan reer Garadagh 3 kun wuxuu kulmiyay ugu qaybiyaa maanta uu leeyahay musabbixidii qayb afar boqolkiiba Garadagh la siiyay sidii ugu qaybiyay mucaarad Siilaayo maanta biyo la ugu qaybiyaa farqaada maanta wuxuu haysay 7 sanadood bas imisa riigo beena la idin dhigay caafimaadkiina ka waran goorma waxa loo qabanaya goorma waxa xasuustay bishii hadda ku jira gudaheeda salsal Cabdi Aadan iyo Musabbix waxa ay tageen wajaale tageen reer wajaale maxay ku dhaheen reer Garadagh reer wajaale salsal Cabdi Aadan maxay ku dhaheen waxay ku dhaheen wixii kulmiye noo bala qaaday oo biyaha oo caafimaadka waana loo dhameeyay waxana loogu daray geedana loogu daray inaga maxay loogu daray maanta maxaa wax la idinkaga doonaya hada waxay leedahay fartiina waynu aragnay Axmed Maxamuud Siilaayo ayay ka soo qaateen tanaynu hoos taaganahay maanta intay tahayna waa aragtaa muuqaalkeedana waa aragtaa kulmiye tanu wax ka qaban lahaa maanta halkan hoos taagan maanta isbedel baynu u baahannahay isbedel baynu nahay isbedelkii baynu doonaynaa waxaynuna siinaynaa taageeradeena iyo codkeennaba xisbiga وما تغيرت المثال هو يستخدم هذا الكلام فأنت ينادى وقفي كلامك ما تقرأه هو وطني وهاي كتب استعيادة وهاي كتب استعيادة وهاي كتب مستقبل كذا وعن هذا اليراني وحنا كتب شنعيها يلا وحنا واسنين حسبك وطني مليون مثال وقعوا علينا أنا كم قنتها أنا دوامي كتير كجرب حاولت حسبي وداني يدك ماذا Garadagh وحنا لكن تغييرات بلارن وهاينا حسبي وداني حتى أنا هيدا اليرادة وحنا تغيير سنة وداني أنا وحنا هو بحيدركها وبحنا حتى لبينين وقايسها وحنا دوانينا أنا حسب وحتر له أننا وحتى وحبرشة هاي حتى دنك عافمات كتاي حتى بيها هاي وحنا وقا قبن كرا أنا وحتى اليرادة نايم كسوق رسالة هنا حسب وحنا وقا قبن كرا كلياتا وحسب وداني ugu dambeyntii waa hadalka soo adneeray xildhibaan Aadan Xaaji Axmed Ismaaciil iska ilaalinayna inta markaan ka shalay waxaad arkaysay dad loogu hanjabayay ee jooga karasharkooda gawaadhi lagu soo gurayo laha kaalaya noo ololeeya oo la lahaa waxaan idinka goynaynaa haddaan noo ololeyn weydaan haddaanu nahay kulmiye garaamka yar ee qaadataan oo gawaadhi lagu gurayo arkaysay waxaan kaloo halkan idinka sheegayaa madax dhaqameedka degmada Garadagh oo ku meelmay siyaasiyiintii
xisbiga kulmiye oo garan waayay wixii ummaddu u dooratay iyo madax dhaqameedkii ay ahaayeen xisbiga kulmiye waxaan u sheegayaa Muuse Biixi 4 jeer buu intii aanu anagu xildhibaanada ahayna soo maray weli maalina lama kulmin xildhibaanadii xisbiga kulmiye ka soo baxayna waanu ahayn intuu cidi soo fadhiisiyay buu yiri cidaas magaalada iiga mas'uula magaalada hal qof jeebka kuma sito waxaan u sheegaynaa cidii uga mas'uulahay inuu masiirkeeda arko Cabdiraxmaan Saylici waxaan u sheegaynaa wuxuu ahaa gudoomiyihii gudida abaaraha ee gobolada Somaliland ma soo dhaafin degmada Burco gobolada bariga oo ay ka mid yihiin Sanaag iyo Sool hal maalin muu tagin wixii loo doortayna muu qaban waxayna ku ololeynayeen waxaynu nahay madaxweyne ku xigeen reer galbeeda inagu markaa ayaa inoo madaxweynaha عبد الفتاح عبد الله بيان تلفزيون كعالمي قاعد ساب قراضك